soo dhawaada daawadayaal wararka ciyaaraha caawa waxaa ugu waaweyn Liverpool oo guul muhiim ah ka gaadhay Wolves iyo 7 dhibcood oo ay ku qabatay horyaalka iyo Tottenham oo gurigeeda ku garaacday Man United. Arne Slot iyo kooxdiisa ayaa iska caabin aad u adag kala kulmay kooxda Wolves qaybtii labaad ee ciyaarta Anfield, balse ugu dambeyn waxay fursad u heleen inay guul gaaraan. Liverpool ayaa mar kale dib u xaqiijisay hoggaanka horyaalka iyadoo 7 dhibcood ku sii dheeraysatay hoggaanka kadib markii Luis Diaz iyo Mohamed Salah ay dhaliyeen goolal muhiim ah taasoo Reds u sahashay guul 2-1 ah. Liverpool ayaa si xoogan ciyaarta ku bilaabatay iyadoo Diaz uu ka faa'iideystay cross uu soo laaday Salah wuxuuna dhameystiray goolka koowaad ee ciyaarta waana goolkiisii ugu horeeyay ee sanadkan 2025. Xidiga reer Colombia ayaa mar kale fursad helay markii qalad toos ah uu ku galay goolhaye Jose Sa gudaha xirada ganaaxa taasoo Salah u sahashay inuu rigoore si fudud u dhaliyo. Dhanka kalena Salah ayaa gool laga diiday sababo la xiriira offside halka VAR ay ka laabatay rigoore uu filayay Diego Jota. Ugu dambeyn Liverpool ayaa lagu ciqaabay fursadaha ay lumiyeen iyadoo Matheus Cunha uu si qurux badan kubad 20 yaad ah uu hubsaday geeska hoose ee shabaqa, balse taasi umay suurtagelin Wolves inay dhibac ka qaataan Anfield. dhanka kalena Tottenham oo garaacday Man United oo marti u ahayd. Goolkii James Maddison daqiiqadii 13aad ee ciyaarta ayaa Tottenham ka caawiyay in ay 1-0 kaga badiyaan Manchester United kulan dhex maray labada kooxood ee dhibaatoonaya. Labada kooxood ayaa kulanka ku bilowday iyagoo ku dhow boosaska looga haro horyaalka marka loo eego kala sareynta horyaalka. Maddison ayaa fursad waqti hore ah helay hogaankana u dhiibay kooxdiisa. Maddison waxa uu ku dabaaldegay xamaasad isagoo aamusiyay taageerayaasha kaasoo ka xun dhaleeceyntii uu wajahay waqtiyadii ugu dambeeyay. Ugu dambeynna ciyaarta waxay ku soo dhamaatay 1-0 oo ay guusha ku raacday kooxda Tottenham oo gurigeeda ku ciyaaraysay. waana markii saddexaad seasonkan gudihiisa ay Tottenham garaacayso Man United